toota suubaniya hanuunka kutiba diinta quraanka cilmi maadiga dhankiisa inuu ka dhaleedmo munaasabada sanad dugsiyeedka cusub ee 2019-2020 ee dugsiga Kandhaleed ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka aroortii hore lagu qabtay barxadda weyn ee dugsigaasi munaasabadan oo ahayd mid si heersare loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka waxbarashada gobolka Togdheer macallimiin maamulka dugsigaasi ardayda dhigata dugsiga Kandhaleed waalidiin iyo gudoomiyaasha jaamacadaha Togdheer iyo New Generation iyo xubno ka socda hay'adda Kandhaleed ugu horeyntiinba waxaa hadalka qaatay maamulaha dugsiga Kandhaleed Mukhtaar Muuse Xirsi isagoo ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwan ee uu soo maray dugsiga Kandhaleed ee magaalada Burco waxaana ka mid ah hadaladiisii dugsiyeedka 2019-2020 xafladeenaasi waxay daaran tahay inay soo dhaweyno sanad dugsiyeedka cusub ee noo bilaabmay dugsiga Kandhaleedku waa hormuudka gobolka Togdheer sababtoo ah dugsiga Kandhaleedku wuxuu ahaa dugsigii horeeyay ee arday form 4 ay ka qalin jabiso intii Soomaaliland jirtay gobolka Togdheer waxa ay dugsiga Kandhaleed uu soo saaray dufcado gaadhaya ilaa 18 dufcadood oo form 4 iyo ilaa 8 dufcadood oo dugsiga dhexe ama ayde dugsiga Kandhaleed waa dugsi ka duwan dugsiga private-ka waa dugsi aan loo aasaasin profit waa dugsi loogu talagalay inuu adeego bulshada reer Togdheer dhinaca waxbarashada runtii waa dugsi aad iyo aad looga aflaxay waxa ka aflaxay dad aad u fara badan oo hadda madaxda wadanka way soo kala dugsigu waxa uu ka duwan yahay iskuulada kale waa dugsi runtii ka qayb qaata skiilka ama xirfadaha kala duwan haday tahay electricity haday tahay biyegelin haday tahay dawaar haddii ay tahay cunto karin haddii ay tahay farsamooyinka kale qofku runtii uu ku shaqaysan karayo marka uu dhameeyo sidoo kale dugsigu waxa uu taageeraa waxbarashada dadka waaweyn oo qofka weyn aan markii uu yaraa fursad aan u helin inuu wax dhigto dugsiga Kandhaleedku qayb uu ka yahay oo runtii waxbarashada dadka waaweyn baa jirta oo gelinka dambe sidoo kale la qaato waalidkana runtii waxaan faraynaa haddii alla ka dhigo inay iskuulka ku xidhnaadaan marka saardagooda ay ka war hayaan halka uu marayo Kandhaleedku dadka uu soo saaraa waa dadka bulshada ku soo kordhinaya waxyaabo kala duwan ardaydii ka soo baxday Kandhaleedku marka maanta Burco laga hadlayo qaarta waa kuwa mas'uuliyiinta sare ah dhakhaatiirta gobolka u shaqeysa marka laga hadlayo intooda hal doorkii maanta waxay ka soo baxeen dugsigan Kandhaleed anigu waalid baan ahay waxaan jecelahay dhammaantiina guulaysataan waan idin ducaynayaa ilaahay idin guuleeyo waxbarashada ilaahay idinku taageero sumcadiina u soo heysaan baan doonayaa iskuulka oo ay ka soo baxaan top 10ka Soomaaliland Kandhaleed anagu daris baanu nahay caruurteeda waxa weeye caruur aad u wanaagsan macallimiinta ka dhigtaana waa macallimiin aad u wanaagsan waqtigu kaaga tagin dharaaro hore tagay u yeelo dugsiga dambaa tubiya tala ka rabtee iskuulkan iyo odayaasha jooga waa in u mahadcelinaynaa maadaama ay dadaaleen oo shaqada inta leeg iyo ardayda inta leeg ay noo hayaan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin runtii iskuulka Kandhaleedku wuxuu ku suntan yahay oo uu kaga duwan yahay iskuulada kale wuxuu ahaa iskuul aqoontiisa tayo haday noqoto macallimiinta ka hawlgasha iskuulka maamulka iyo dhammaanba ardayda waqtigu garansiyo dadka ka soo baxa ahaayeen dad aad tayadooda aqooneed ay u sareyso maamulka iskuulka Kandhaleed iyo sidoo kale dhammaan bahda macallimiinta ee wax ka dhigtay iskuulkan oo runtii ah macallimiin badankoodu ama gebigooduba ay yihiin macallimiin xirfad karti iyo dadaal fara badan oo ka muuqdo oo ay ka muuqato ardayda soo saaraan sanad kasta Kandhaleedkana waxa ugu filan sharaf intaas oo injineer iyo intaas oo madaxi maadaama maanta isku yimaadeen oo mid kasta laga oranay Kandhaleed ka soo baxay ardaydana waxa leeyahay sanad kastaba wuxuu leeyahay calaamad hal idinku xasuusto waxa ay iskuulka kaga tagtaan dugsiga Kandhaleed ayaa ka mid ah dugsiyada ugu aqoonta iyo tayada fiican ee gobolkani Togdheer ugu dambeyntii waxaa shahaadooyin iyo jaayisado la guddoonsiyay ardaydii kaalmaha hore ka gashay sanad dugsiyeedkii aynu ka soo tagnay ardayda dhigata dugsiga Kandhaleed ayaa dhankooda iyaguna shahaadooyin iyo hadiyado guddoonsiyay macallimiinta dugsigaasi wax ka dhigta Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi TV-ga caalamiga ee Somali Cable Burco